magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gadana waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatadii ay u geysteen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab iyadoo waliba dhaqdhaqaaq ganacsi oo xagga dhismaha laga dareemayo magaaladaasi warbixintaasi waxa Balad Xaawe nooga soo diray wariyaheena Cabdiqani Xuseen Kuusow degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadana ku taala xadka kala qaybiyay wadamada Kenya iyo Soomaaliya isla markaasina xiriir ganacsi oo aad u weyn la leh degmada Mandheere ee dalka Kenya ayaa si xawli uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii la dagay sanadadii la soo dhaafay Balad Xaawe ayaa xilligan waxa laga hirgelinayaa dhismayaal markaad aragto ku soo jiidanaya kuwaas oo ay bilaabeen kuna dhiiradeen inay hirgeliyaan ganacsiga degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadana sidoo kale waxa dib u soo laabtay deganaanshiyaha dareenka ummadda oo awal cabsi badan ka qabi jiray isku dhacyada dhinacyada isdiidan ee dawladda iyo Al-Shabaab waxaana lagu arkayaa magaalada in ay hooyooyinka iyo maamulka degmadaba ay soo bandhigayeen xusaska qaran oo ay muujinayaan dareenka niyad sami ee dadku ay xilligan helayaan gudoomiyaha degmada Balad Xaawe ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdi Nuur Beexaani ayaan weydiiyay hamigiisa horumarineed ee degmada Balad Xaawe inta uu leeyahay waxaanu yiri bismillah waa maasanta ku soo su'aal fiican weyn caqabadaha jira horta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan iska fahnay dadka deegaanka oo degmada iyo nawaaxigeeda ku nool caqabadaas waan ka gudubnay horta qolaha si fiican baan isula qaadanay degmadayada inaan horumarino inaanay dib u dhac iyo haritaan badan baa ku dhacay inaan harin oo wixii hadda ka bacdi tacab iyo waxbarasho loo soo jeesto oo bulshada la abaabulo oo la kiciyo oo ubadka wax la baro oo dalka tacab loo celiyo oo masaalixada iyo nabadda laga shaqeeyo oo si nidaam oo isku xirnaan oo rigsi leh inaan uga wada shaqeynaan horta ku ballanay dadka deegaanka waan uga mahadcelinayaa awal dadka deegaanka kacdan waxa ku jira raabal iyo raabal waa ka baxeen waa ka gudbeen waxay u gudbeen inay dantooda ka shaqeystaan day dhisma noqoto day waxbarasho noqoto day beer tabcasho noqoto intaasaan isku ognaanay degmada Balad Xaawe waana ku ballanay akhyaarteeda iyo dhalinyarada waa maasan dadka dibadda waxaan aaminsanahay oo jaariyada oo u dhashay gobolka maasad inay shabaab ku xukumaan way akhristaan laakiin waxaan u sheegayaa maasad inay akhrisan inay dalka dib ugu soo noqdaan oo dadka wax baraan oo dadka la tabcadaan oo dadka tacab laga ay dalka kala gelinayaan ay dalkooda soo geliyaan oo dadka u sheegaan tubta toosan intaasaan ayaan u soo jeedinayaa maasad ba shabaab ku dhaarnaa oo leeyahay hadda timaado oo lagu baraynay waa lagu ogaa meesha taagan waxaasi waa wax laga soo gudbay dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ay sarugsan yihiin dhanka waxbarashada waxaana uu sheegay in uu rajo weyn ka qabo inay kor soo qaadaan oo ardayda waxbarasho la'aan iyo ruuf kala soo kordhicin maan ku ballan degmada iyo askaga kaashana waalidiinta ganacsatada oo ku wargelina waxaan contribution ka geystaa dhismayaalka ka socda iskoolada iyo sida manaahiijta waxbarashada oo kale insha Allah ayagana waan go'aankaasaan ka leenahay waxaan rajaynaynaa isbedel fiican oo la taaban karo oo muuqdana waxbarashadana ka soo dhalaalan oo ka soo baxaan si kastaba ha ahaatee degmadan ayaa haddii ay hesho deganaansho waxa ay tahay midda ugu dhismayaasha badan amaba ugu ganacsiga xoog badan gobolka Gadana marka loo eego maadaama ay ku furan tahay xuduud 3 geesood ah oo ay la leedahay wadamada Kenya iyo Ethiopia Maxamed Xuseen Kuusow TV caalamiga ee Somali Channel degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadana